Iqra Cabdullaahi Huudey waa gabar kaalin kaga jirta bulshada Soomaaliyeed waxa ay deegaano ka mid ah degmada Matabaan ee gobolka Galgaduud ka hirgelisay barnaamij lagu buufinayo kaneecada. Ololahan oo ah mid lagu doonayo in laga hortago dhibaatada duumada ayaa waxa bogaadiyay dadka deegaanka Matabaan waxaana qayb ka ahayd dhalinyarada degmadaas si weyn uga qayb qaadanaya hirgelinta iyo mirka dhalinta ololahan lagu buufinayo kaneecada. Iqra ayaa ugu horreyn ka sheekeynaysa sida ay ugu dhalatay hindisahan. waxaan ku barbaaray degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan waxaan ka mid ahay dadkii soo hindisay barnaamijka kaneecada khayraadkaasi waxaa garab u siiyay tiim fara badan oo dhaqaatiir badan oo magaalada igu soo dhaweeyeen mid kale waxa igu qasabtay waxa ka mid ahay in aan macnaha kaneecadeedu inay zaid u badan tahay in aan 24 saac aan nahay dadku dhex jiro sida xabsi camal ilaa yaraanteedii aan ku soo jiray siyeeri oo leegala daba socday waxaan niyadeeda ku soo dhacday ma dhici kartaa in aad hal habeen aad si gandareel la aad u seexato haddaad adiga si ilmahanimadaada u seexan weydo ma dhici kartaa inay caruur oo aad walaalaha ah oo degmada kula degan in ay si gandareel ah u seexdaan in macnaha kaneecadu ay leedahay duumo inay leedahay malaria waa sax tan kale haddana waxaa xanuun badan markaad soo fariisato in kaneeca ay xogayaha dhalinyarada iyo ciyaaraha degmada Matabaan Cabdikaafi Xasan Ciid ayaa ku tilmaamay hindisaha Iqra mid wax badan ka bedeli doona caafimaadka dadka deegaanka. maanta waxaan isugu imaanay in aan ka hadalno barnaamijka ciribtirka kaneecada ama buufinta kaneecada sida loo yaqaano waxaad aragtaan boorka halkan dhabarkayga ku dhigan waxaan ugu talagalnay boorkaas markii ay soo hindistay gabadha magaceedu ku qoran yahay loo yiraahdo Iqra barnaamijkaas oo aan ugu magac darnay Iqra mosquito spray and sanitation aan ugu magac darnay soo hindisid kadib waxaan go'aansanay in aan sii wadno hindisaad kadib oo sii kicino maadaama magaaladeena ay tahay magaalooyinka Soomaaliya ugu kaneecada badan magaaladeena Matabaan maadaama ay tahay magaalada ugu kaneecada badan Soomaaliya magaalooyinka ugu kaneecada badan ugu magac dheer loona yaqaan magaalada kaneecada badan waxaan go'aansanay in aan cirib tirno kaneecada lana dagaalamno duumada waxaan soo dhaweynaynaa cid walba oo nagala qayb qaadato oo nagala qayb qaadan doonto hadday tahay jaalid iyo hadday tahay dad u dhashay deegaanka iyo hadday tahay dawladda gaar ahaan wasaaradda caafimaadka qaybteeda la dagaalanka duumada waxaan ka codsanaynaa si ay ku dheehan tahay soo dhaweyn iyo sharaf inay nagala qayb qaadato maadaama ay tahay dawladdeena. Hoggaanka ololahan lagu buufinayo Aamina Daahir Canshuur ayaa ballan qaaday in wax badan ay ka qaban doonaan howlaha buufinta si loo ilaaliyo badqabka caafimaadka ee degmada Matabaan. Waa in wasaaradda caafimaadka gacan ka geysata ololahan ayay hadalkeeda sii raacisay Aamina. waxa way barnaamijkan waa barnaamij la yiraahdo muxuu ahayto waa sidiisa waa u jeedaan tiimka waa 5 qof iyo in kale ka sii badan oo ku darsami doonta tiimkan wuxuu loo dhisay ama soo sameynaya in aan ka howlgalno la tacaalida malaariyada iyo muxuu ahayto wacyigelinteeda iyo magaalada in macnaha intii aan ka qaban karno aan ka qabano anagoo la kaashanayna deegaanka degmada oo muxuu ahayto afarta xaafadood iyo maamulka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan sidaas darteed waxaan nahay dad filanteera oo u istaagay inay hawshan qabtaan fikirkeedana ay keentay Iqra Misquid oo magac darnay gabadha halkan fadhido u jeedaan ma sha Allah qayb badan Allah siiyo anaguna waxaan nahay dadkii barnaamijka hore u dhaqaajinay oo raba inay qabtaan sidaas darteed waxaan soo jeedinaynaa barnaamijkan qof kasta oo maaragtay caafimaadka oo quseeyo ama sida howlahan quseeyaan in ay naga qayb qaataan sida wasaaradda caafimaadka iyo hay'adaha caalamiga ee caafimaadka qaabilsan waxaan kaleeto aan leeyahay barnaamijkan in maaragtay aan dhaqaajino anaga waajibaad nagu ah inaan dhaqaajino oo aan hore u socono walaalayaal intan dhageysanaysa inta joogta meesha waxaa idin leeyahay barnaamijkan waa barnaamij muhiim ah malaariyadu waxay ka mid tahay 6 cudur oo dilaaga ah waxa way waa in la tacaalaa oo la daaweyn karaa laakiin ka hortag ma ilaayada laakiin waa la daaweyn karaa. Dr. Yuusuf Cabdiraxmaan Dabeero oo ku hadlayay magaca dhaqaatiirta degmada Matabaan isla markaana aqoon u leh dabargoynta kaneecada ayaa sheegay inay garab taagan yihiin dhalinyarada soo abaabushay barnaamijkan. waxaa la ogyahay cudurka dhibaatada uu leeyahay wixii
sababayeen haddii ibda ay ku fadhiyaan waxaad u baahan tahay inaad iska horeyso marka waxaa ila tahay inaan dadaal dheer u galno anagoo maaragtay si mutadawacnimo ku shaqeynayo oo haddana wax dhaqaalo u gooni nagu siinayo ay jirin waxaan u istaagnay marka inaan deegaankeena ka ciribtirno cudurkan dugmada marka waxa waaye insha allah in xataa wixii shaqadaas lagu qaban lahay anaga jeebkeena inaan ka bixino aan ku dadaalno maadaama aan nahay dadkii deegaankan indhaha u ahay garanaya haddana dhaqaatiirtu waxay garanaya haddana dhibaatada uu leeyahay cudurkan inaan maaragtay marka ka ciribtirno oon la dagaalno si kasta ay noqoto inaan haddii la yiraahdo waxaan jecelnahay aan meel fiican ku geyno insha allah barnaamijkan buufinta kaneecada ayaa la bilaabay 10kii Juun ujeedkiisuna waxa uu ahaa ilaalinta badqabka caafimaadka si gaar ah dabargoynta duumada. Xamdi Mahadiiriyo Goobjoog TV.